ciidamada bilayska Somaliland ee gobolka Sool ayaa maanta xabsiga u taxaabay wariyaha TV-ga Universal uga soo warrama magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool wariye Maxamed Shaqale ayaa xarigiisa waxaa ku weheliya wariye kale oo ka mid ah wariyeyaasha wax ku qora website-yada localka ah laguna magacaabo Cadnaan Saalax Maxamed. xariga wariyeyaashani ayaa ka dambeeyay kadib markii sida la sheegay ay baahiyeen warar ku saabsan deeq raashin ah oo maalintii shalay la gaarsiiyay dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. ciidamada bilayska ayaa maanta gudaha u galay xafiisyada ay ka howlgalaan suxufiyiintaasi, waxaana wararku intaasi raacinayaan in ay u sheegeen inay xidhan yihiin isla markaasina dambi loo haysto. amarka lagu xidhay suxufiyiintani ayaa la sheegay inuu bixiyay gudoomiyaha gobolka Sool ee maamulka Somaliland Cabdillaahi Jaamac, isagoo ku eedeeyay inay baahiyeen warar la xidhiidha deeq raashin ah oo la gaarsiiyay dad danyar ah oo ku dhaqan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool sida la sheegay. deeqdaasi ayaa waxaa soo diray jahliyad Soomaaliyeed oo ka soo jeeda gobolada Puntland kuna dhaqan dalka Sweden. maaha markii ugu horeysay oo xabsiga loo taxaabo wariye Maxamed Shaqale iyo sidoo kale suxufiyiin ku dhaqan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. waa markii lixaad ama toddobaad oo xarig noocan oo kale loo geysto wariyaha TV-ga Universal ee magaalada Laascaanood Maxamed Shaqale, waxaana muddooyinkii dambe caadi ka noqotay xariga wariyeyaasha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Khadar Cawl Ismaaciil, telefishinka Universal, Buuhoodle.